wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay kamid tahay shir furitaan oo ah wada hadallo ay ku wada kulmi doonaan labada madaxweyne ee Muuse Biixi iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. wasiirka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi maaha wada hadalkii laakiin furitaan labada madaxweyne ay ka sameeyeen ay Djibouti ka sameeyeen berigii hore wadiga ogaado labada madaxweyne marba isugu yimaadeen Djibouti ku saabsan arrinkan dabana iftitaaxa marka la sameeyo ayuu wada hadalku uu bilaabmaya waxaanu ka bilaabmaya saaxada caalamiga ayuu ka bilaabmi doonaa insha Allah wadanka Switzerland baa iminka muujiyay diyaar inuu yahay inuu arrinka ay naga caawiyo qayb ka qaato inuu soo dhaweynina ay hubin qolada kale soo dhaweyso waan marka hore aan sheegay wali ma mudeysna aniga kulanka Djibouti arrinka Turkiga runtii gogolun bay noo dhigi jireen iyagu hadalka qayb kama ahayn laakiin Turkigu mowqifkoodu runtii wuu cad yahay iyagu waxa weeye moodo dhowr jeerna way yiraahdeen baba waa Soomaali weyn marka arrin la isku hayo haday cid arrinka daraf ka tahay dhexdhexaadna kama noqon karto oo waa arrin runtii waxaan u baahanahay cid dhexdhexaad aan ku kalsoonahay ayaynu u baahanahay laakiin uga mahad celinaynaa dadaalkii hore sameeyeen Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA